in badan oo idin kamid ah waxaad la soo toosteen qarax culus oo waliba laba jug la sheegay in isxigtay ahayd oo aad dadka meel kasta oo magaalada ay joogeen ay ka maqleen. haddaba waxaan rabaa in aan idinla wadaago sida ay wax u dhaceen, sawiradii u dambeeyay iyo ciidamadii meesha ku sugnaa waxyeelada soo gaartay iyo ilaa hadda hadday jiraan cid loo qabtay. soo dhawow walaal. sida xogta u dambeysay hadda aan soo ururinay ay sheegayso, waxaa qarax lala eegtay ciidan dowladda ka tirsan oo ammaanka sugayay oo joogay halka loo yaqaano Buulixubay, gaar ahaan lootada u dambeysa ama luuqa u dambeeya ee jidcadaha ah ee macruuf. ciidanka halkaas waxa uu ahaa goob ay fariistaan. haddaba intaynan gudagelin waxyeelo miyaa jirta, yaa wax ku noqday, waxaan rabaa inaan isla fiirino sawirada laga qaaday goobta qaraxa uu ka dhacay ee la sheegay inay fadhiisin ama xarun u ahayd ciidamadan Soomaaliyeed ee ammaankeena suga, kaas oo si joogto ah maalin kasta u fariisan jireen, balse xalay loo sii qariyay qaraxan aadka u weynaa. ilaahayse uu maanta ku aadiyay aroor hore oo weli dadka aysan soo wada toosin, haddii kale waxyeelo aada u weyn ay ka dhalan lahayd. sawiradan aragno. waxaa la sheegay in ciidamada ay meeshan u ahayd xarun ay fariistaan ama checkpoint yar oo ay xaafadaas dhaqdhaqaaqeeda kala socdaan. waxaana la xaqiijiyey in qarax miino horey loogu sii qabeeyey goob qashin uu yaalay oo aagga iyagu ay fariistaan u dhowaa. kadibna markii ilaa iyo 5 askari saaka ay damceen inay aaggii soo galaan oo kuwii ugu horeeyay ah ee ciidankaasi ka tirsan ayaa loo taabtay, halkaas ayuuna qaraxi ka dhacay. ilaa iyo hadda tiro dhimasho ah oo ciidankeena soo gaaray lama sheegin. intaasna ilaahay ku akayo wax fiican waa inaysan waxyeelo ka soo gaarin ciidanka. waxaa la xaqiijiyey in burbur handiyadeed oo weyna inuusan jirin marka laga soo tago waxa hadda indhihiin ku aragteen. balse waxaa jirtay maalmahan in xaafadda Buulixubay ay si aad u gaaf wareegayeen ciidamadan, iyada oo la sheegay in cabsi weyn la qabay oo ku aadan in halkaas waxyeelo qarax ah loo geysto rag saraakiil ah oo xaafadda degan. sida xogta aan ku helnay, inkastoo magaciisa aynan helin, halka qaraxa uu ka dhacay lootada ku xigta waxaa degan sida la xaqiijiyay nin sargaal ah oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya oo khatar ah. ninkaasna waxaa laga shakinayay in bartilmaameed uu noqon karay. beryahaana waxaa jiray ilaale aad u badan oo Buulixubay laga dareemayo. goobta markii wax ay ka dhaceen waxaa markiiba ku cararay oo gaaray laamaha amniga ee gurmadka sameyn karay ee ciidamada Soomaaliyeed sida booliiska. waxaana ay markii ugu horeysay xaqiijiyeen in meesha uusan weli ku jirin wax kale oo qaraxa oo kii dhacay mooye wax kale aanu soo kordhin. waxaana ay xaqiijiyeen in dhimasho iyo dhaawac aanan la xaqiijinin oo meesha aysan waxyeelo ah ka dhalan. waxaa jirtay oo aan idinla wadaagnayn annagana laamaha amnigana loo sheegay goor sii horeysay oo shalay ah in magaalada alert weyn uu ka jiro. alertiga ama khatarta digniintana ay tahay in kooxdan naflacaariga ah ay sameynayso waxyaabo halis ah oo ay ka mid yihiin qaraxyada noocan oo kale ah oo dadka shacabka ay waxyeelo ka soo gaari karto. waxaana la xaqiijiyey dadka waxyeelada ay soo gaari karto xitaa inaanay keliya ku koobnayn saraakiisha madaxda dowladda iyo shaqaalaha dowladda, ee sidoo kale ay waxyeelo soo gaari karto dadka shacabka ah. soo gaari karto digniintaas marka la leeyahay waxa ay tusaale ahaan ahayd tan maanta dhacdo kale. waxay ahayd aroor hore xilli dadka aysan soo banaan bixin, weli aan la soo kalahin oo waagu markaa uu dilaacay marka qaraxan u dhacay. tusaale ka soo qaad Buulixubay oo aad aragteen sida ay mashquul u tahay, faras magaal u tahay. haddii barqanimo uu qaraxaas dhici lahaa, inta qofood ee shacaba ee waxba aan galabsan ee wax ku noqon lahayd. digniinahan runtii oo ay kasoo baxday hay-adaha shisheeye ee waddankeena xarumaha ku leh, laamaha amnigu waa uu gaaray. taasaana keenaysa inay feejignaan badan sameeyaan iyagu, balse shacabka wax digniin saxa oo la siiyey oo la yiri iska ilaaliya xaaladahan ayaa jira ma jirin. sida aawadeed dadkiini hore noola socday digniintaas annaga waa idinla wadaagin. goobta haddaan dib ugu soo noqono, sidaad u jeedaan burburkaas ka dhashay, waxaa hadda jooga ciidan aad u tiro badan oo ah kuwa dowladda Soomaaliya oo isugu jira dharcad booliis militaar iyo sidoo kale booliiska caadiga ah. waxaana sidoo kale hadda la xaqiijinayaa in baaritaan dheer la sameynayo oo ku saabsan xaafadaha
si loo ogaado ugu yaraan halka mastermindka qorshahan dejiyay ninkii ka dambeeyay inuu aaga ka dhow yahay in kale. dabcan waxay aaminsan yihiin laamaha amniga intaan la hadalnay in qof deegaanka ah uu falkan sameeyay oo aad u garanaya xeeladaysiga iyo xaafadaha, maadaama qof kale oo deegaanka aan ahayn oo dool ah uusan ku dhiiran karin ayay leeyihiin fal noocan oo kale ah inuu sameeyo. halka ciidanka lagu gaaday ama loo geliyay waxaa la sheegay inay ahayd meel si joogto ah ay u imaan jireen, u fariisan jireen, xaruntooda u ah. marka iyaga oo aan wax hubin sameynin ayana si maaragtay baylaha ah u soo galeen, u fariisteen, sidaas ayaana qaraxii inkastoo ilaahay uu ka badbaadiyay alxamdulillah. wixii ka soo kordha idinka ayaa noqon doona dadka ugu horeeya ee xogtan hela. ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka. dhakhtarka oo daboolay baahiyaha caafimaad ee loo aadi jiray wadamada dibadda waxa uu filin doonaa dhammaan qalinka guud iyo kuwa casriga ah ee laserka. maalin waliba waxa uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar ama wixii faahfaahinta dheeri kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya. Hayay waa Imara Luxury Homes Limited, hoyga quruxda leh halka aad ka helayso waa Nairobi ee ha ka maqnaan. Imara Luxury Homes Limited waxay guryaha ka dhistaa Nairobi gaar ahaan xaafadda Parkland. dhismaha koobaad waxa uu leeyahay adeeg kasta sida goobihii cibaadada. dhismaha waxa uu leeyahay madaaris, goobaha dabaasha oo rag iyo dumar loo kala saaray, cafeteria, supermarket, farmashi, goobaha caruurta ku ciyaaraan iyo adeega ambalaas xaaladaha degdega ah. habka lacag bixintu waa hab sahlan waxaana socda barnaamijka 90 maalmood ee ku eg 3 bisha September ee la magac baxay hoygu waa muhiim ah hanti yeelo, kaasi oo ah qiimo dhibis kala bar ah in aad gurigaad rabto ku iibsanayso. sidoo kale waxaa jira fursado kale oo lacag bixintu tahay 4 sano oo bilaa dulsaar ah. wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala xiriiri kartaa Imara Luxury Homes Limited. xafiisku wuxuu ku yaalaa Linana Road, Hurlingham, Nairobi, Kenya. kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda.